Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waad ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijyada halkan aan soo gelino sida wararka, falanqeynta siyaasadda. Sidoo kale insha Allah waxaan ku dari doonaa warbixinta caafimaadka iyo sidoo kale xagga waxbarashada. Daawadayaal, waad ku mahadsantihiin. Taariikhdu maanta waa 2020 bisha 6aad 18 aan ku bilowno. saraakiisha ugu sareysa wadanka Turkiga sida wasiirka arrimaha dibadda Mas'uud Kafashoglu iyo wasiiro kale oo xubno sare ka ah oo xilal sare ka haya wadanka Turkiga ayaa soo gaadhay wadanka Liibiya ee magaalada Tripoli. Caasimadda wadanka Liibiya ee magaalada Tripoli fadhigeedu yahay dowladda ay qorsatay qaramada midoobay oo hogaamiyo Fayez al-Sarraj ayaa ku qaabilay wadanka Liibiya. Ra'iisul wasaarahan wadanka Liibiya Fayez al-Sarraj ayaa soo dhaweeyay saraakiishan ka socotay wadanka Turkiga. Labada wadan waxay sheegeen inay ka wada shaqeyn doonaan xasiloonida gobolka iyo sidoo kale horumarinta wadanka Liibiya iyo dhaqaalaha wadanka Liibiya iyo sidoo kale ka wada shaqeynta xagga sirdoonka, caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale iska kaashiga badda Mediterranean-ka. wadanka Turkiga waxaan ognahay inuu si togan u caawiyo wadanka Liibiya, taasoo uu siiyo dhaqaalihiisa ugu badan xagga sirdoonka iyo sidoo kale xagga caawimada hubka militariga iyo caawinta kaleba. wadanka Turkiga wuxuu qayb lixaad ka qaatay sal u dhigida siyaasadda wadanka Liibiya. Arbacadii, wasiirka difaaca ee wadanka Faransiiska ayaa eedeyn kulul u jeediyay dowladda Turkiga. Dowladda Turkiga waxay ka baaraysaa shidaal badda Mediterranean-ka, sida uu sheegay wasiirka macdanta iyo tamarta ee wadanka Turkiga. Wasiirka macdanta ee wadanka Turkiga ayaa sheegay inay shidaal ka baarayaan badda Mediterranean-ka, taasoo ku dhex jiraan processkii lagu soo saari lahaa shidaalka ku duugan badda Mediterranean-ka. Haddaba bariga badda Mediterranean-ka ayuu wadanka Turkiga muddo dheer ka baarayay shidaal taas oo ku duugan badda Mediterranean-ka. Iminkana wadanka Ruushka ayaa soo dhaweeyay xabad joojin taasoo ku baaqeen midowda Yurub in laga sameeyo dagaalka ka socda wadanka Liibiya. Dagaalka ka socda wadanka Liibiya iyo dhiigga ku daadanaya ayaa la sheegay in waan xabad joojin laga dhex bilaabo, taas oo ay soo jeediyeen midowda Yurub, balse wadanka Ruushka uu aqbalay codsiga uga yimi midowda Yurub. Ra'iisul wasaaraha wadanka Greega Kyriakos ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Sahnuniyadda Yuhuudda Benjamin Netanyahu. Ra'iisul wasaaraha wadanka Greega Kyriakos wuxuu ku eedeeyay dowladda Turkiga inay wado faragelin cad iyo sidoo kale gardarro cadaan ah iyo sidoo kale inay tahay wadan kusoo duulay iyo sidoo kale Turkiga shidaalku ka baarayo bariga badda Mediterranean-ka. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inay u baahan tahay tallaabo cad oo laga qaado wadanka Turkiga iyo sidoo kale inayna waafaqsanayn shidaalka uu ka baarayo shuruucda caalamiga. Madaxweynaha wadanka Masar Cabdiraxmaan al-Siisi ayaa khad telefoon ka helay madaxweynaha Bahrain Maxamed bin Ciise Khalifa, waxayna ka wada hadleen xaaladda ka taagan wadanka Liibiya, dhaqaale xumada iyo sidoo kale xiisadda iyo dagaalka sokeeye ka taagan wadanka Liibiya iyo sidii xal looga gaari lahaa iyo sidii loo xalin lahaa intaba. Haddaba, jaamacadda Carabta ayaa cambaaraysay shaqaale kuwaas oo lagu qabtay magaalada Tarhuune ee uu haystay Khalifa Xaftar, waxaana qabtay ciidamada ay qorsatay qaramada midoobay ee loona soo gaabiyo GNA iyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Tripoli. Waxaa social media laga arkay tacdiyada, cayda iyo dhibaataynta ay u geysanayaan shaqaalaha kuwaas oo u dhashay wadanka Masar. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka Angela Merkel ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay, waxayna ka wada hadleen xaaladda ka taagan wadanka Liibiya iyo sidii xal looga gaari lahaa dagaalka sokeeye iyo dhiigga daadanaya kaasoo ka taagan wadanka Liibiya. iyo sidoo kale waxay ka hadleen bariga badda Mediterranean-ka oo ka baarayo Turkiga shidaalka. Labadan wadan waxay ahaayeen laba wadan oo kala fog, balse iminka waxay noqonayaan laba wadan oo isfahmaya, kuwaasoo wadaagaya arrimaha sirdoonka iyo arrimaha amniga. Ambaasadorka u fadhiya UN wadanka Liibiya ayaa sheegay inaan xal militari aanay ahayn in laga gaadho khilaafka wadanka Liibiya, balse lagu xaliyo xal siyaasadeed, wuxuuna ka digay inaan la siyaasadayn dhinacyada xalka u raadinaya wadanka Liibiya.
xaaladda u dhaxaysa waddanka China iyo waddanka India ayaa mid soo kordhaysa, waxayna ogeyn 15kii bishan in 3 askari oo Indiya lagu dilay xuduudda u dhaxaysa labada waddan, balse waxaa la sheegay in 20 askari gaadhaysa laga dilay waddanka India, taasoo xiisadda soo kordhaysay u dhaxaysa labada waddan. Haddaba labada dhinac waxay soo dhowreen ciidamo xuduudda, taas oo xiisad ka taagan labada waddan, balse labada waddan waqti dheer may soo dagaalamin, balse India waxay sheegtay inay jebiyeen shuruucda, taasoo ay kala saxeexdeen heshiis u dhexeeya labada waddan. Daawadayaal, waxaan idinka haynay dhammaanba qodobo dunida daafaha caalamka naga intaan ku kulmi doono midna bidda waxaan kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.